dad badana waxay weydiinayaan su'aalo aanan munaasabna u ahayn markii aan Soomaalida nahay. Soomaali markaan nahana diinta weyn ugu adag tahay, adna waa ogtahay, anigana waa ogahay. Waxyaabaha lagu dhahay iska dhaaf waa ogtahay, waxyaabaha lagu dhahay sameeyna intaba. Healthcare worker-na markii aad tahay, I'm sure waa taqaanaa wixii yani aad sameyn lahayd ama tallaabada aad qaadan lahayd lacal haddii oo occupational injury oo kugu dhaco sida needle prick injury oo kaleento iyo fluid exposure ama fluid splashes haddii oo kugu dhacdo waa taqaanaa tallaabada aad qaadan lahayd. laakiin hadda waxaan la hadlayaa dadka aanan healthcare worker-ka aanan ahayn, cilmigana aanan aqoonin. That's what I'm sida gaaladani intaa soo fadhiistaan preventative measures idima soo tixayo idima dhahaysaan sameey because waa ognahay gaalada preventative measure-kooda inaan taas inta soo fadhiista aan idinla wadaagana qaladay ila tahay because Soomaaliya nahay, Muslimaan nahay, we know what's wrong, we know what's right. kasoo lacalaba kasoo qaad whatever mistake alaba kasoo qaad mistake ka dhacay whatever oo noqda amba waxa kugu dhacay wax oo lama filaan adiga gacantaada ku control karin, dhiiga la kulantay, whatever ay noqoto, there is something called PEP or post exposure prophylaxis. Ideally waxaa fiican the first hour in a clinic aad xaaladaada ugu sheegtid iyo waxyaabaha kugu dhacay inaad samaysid iyo sida aad ula kulantay dhiig amba bodily fluid aadan ka warhaynin qofkan wuxuu uu yahay iyo the other person unknown oo yahay iyo hadoosan unknown ahayn intaba. So what you can do is you go to the clinic, waa u sheegaysaa dhiigay kaa qaadayaan, dhiigaaga la baaraya ina horta positive aad tahay, la fiirina haddaad negative tahay, then waxaa la qaadayaa dhiig caadiya laga qaadaya, labka loo diraya. On top of that waxaa la sameynayaa prophylaxis alloxinaya for 28 days which is ARVs basically, and daawada loogu talagalay HIV AIDS in loo qaato alloxinaya 28 beri daawadaas cunaysaa. ka bacdi marka aad dhamaysatana dhiig kale inta laga qaadayo to see in oo negative aad tahay ina positive aad tahay. I hope intaas inay idinku faa'iideynayso, but